tartanka waxaa ku guuleystay ciyaaryahanka lagu magacaabo Axmed Maxamed Muscab ayaa ku guuleystay tartanka baaskiilada ee Somali Cycling Cross Championship kaalinta koowaad ayuu galay isagoo qaybihii dambe kala wareegay ciyaaryahankii hogaaminaya tartanka Axmed soo dhaw dareenkaaga ka waran dareenkayga oo la aad u kacsan yahay sidee kugu suura gashay inaad kaalinta koowaad ka gasho ciyaartooydan ku dhawaad 30 qofood ee tartanka ka qayb qaadanaya alxamdulillaah ma hadda marka hore tood waxa waaye labadii dhagaxmid isku dhufnaa ka soo haro macnaha walaalkii xasan aad ugu mahad celiya marka waa rajayaha inaan koowaad galo waan ku faraxsan inaan koowaad galo laakiin tartanka juhdi badan iyo waqti badan soo siiyay markaas awiga ka soo galo koowaad isleeyahay dadaal aad muujiyay waxaad muddo in qaybii hore dhan laga hogaaminay laakiin min raayada markii la imaaday hogaanka ayaa la wareegtay waan ku dhameysatay bal ka waran qaybii hore markii laga hogaaminay iyo markii aad la wareegtay markii dambe farqiga idin dhaxeeyo ciyaarta masaaxib sida loo sheegay saas waay macnaha markuu aniga xawaar ma siiyeen laakiin xawaaraha waxa siiyay markaa macnaha oo u dhawa kaalintaba saas awgeeda macnaha tartan walba sida loo galaa saas loo galaa kan iyo koob maanta dad badan ka soo qayb galay way jiraan iyo tartamo albit badan waa soo galiyay juhdi badan waa soo galiyay baaskiilkan marka waxa waa xirfadaha la isu dheeraa meehan ordana wax lagu soo saaciday maskax aqli aan soo saacidaw waxaan soo dhaweynayaa ciyaaryahanka kaalinta labaad ka galay soo dhawow xasan bal waxaad ka warantaa dareenkaaga ku aadan tartanka aad ka qayb qaadatay sanadkan wallahi run ahaantii aad aan ugu faraxsanahay Astaan TV-na aad u mahadsan yihiin iyo xiriirka Soomaaliya oo qaybta baaskiilada aad u mahadsan yihiin maadaama dhalinyarada isku keeneen oo tartan baaskiilada wada qabteen wallahi kaalinta labaad inaan galaadan ugu faraxsanahay laakiin targetkayga wuxuu ahaa inaan number 1 galo wayay laastig markii qaybta ugu dambeysay dhamaadka aad ku soo dhaweedeen waxa mararka qaarkood dadka soo galay rajaa inaad soo gali karto adigoo aad u soo xawaareynay speed badan sameynayay wallahi taas waxa la dhigi karaa ninka number 1 ku jiray waa nin tartamada marar badan ka soo qayb galay anna waa markii ugu horeysay ka qayb galay tartanka baaskiilada waxa sidii kara inuu xoogaa iga khibrad badnaayo wadada markaan ka gal rabo geeskayga iga buuxinay jaanis buu ii diiday inaan geeska maro si fiican ugu dambeyntii maxaad ka rajaynaysaa tartanka baaskiilada iyadoo dadku aysan kaaga baran laakiin markuu ugu horeysay kugu arkayaan wallahi waxaan micnaha shacabku sheegayaa inaan number 1 gali doono ilaa iyo xiriirka Soomaaliya micnaha ilaa dibadda u tartami doona duuleere ciyaartooyda kaalinta shanaad iyo afraad galay laga bilaabayo waxaana la siinayaa markan biladiisa ciyaaryahan kaalinta shanaad ee Axmed Sheekh Maxamuud ayaa la siinayaa Axmed Sheekh Maxamuud oo kaalinta shanaad ka galay tartankii baaskiilada ee Somali Cycling Cross Championship garsoore Saacid ayaana markaasi gudoonsiinayo oo xagayaha markaasi xiriirka baaskiilada Soomaaliyeed waa madaxa tartamada dabcan ayaa gudoonsiinaya kaalinta afraad ayuu soo kala gudoonsiyay oo ah Abshir Cabdullaahi Saylax ayaa galay kaalinta afraad waana wiil daayar isaga ayaana markaa xidigaha kaalmaha galay ugu daayar Abshir Cabdullaahi Saylax wayay iminkana waxa la marinaya ciyaartoydii kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad ka galay tartanka baaskiilada Somali Cycling Cross Championship iyadoo ciyaaryahanka kaalinta saddexaad ka galay tartanka laga bilaabi doono dhanka biladaha iyo abaalmarinada waana ciyaaryahanka lagu magacaabo Mahad Cabdullaahi Maxamed ayaa ah ciyaaryahanka markaasi kaalinta saddexaad galay waxaan siin doono gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee baaskiilada Zakariya Macalin Nuur ayaa siin doono biladiisa waa Mahad Cabdullaahi Maxamed isaga ayaana gudoonsiyay sidoo kale waxa la gudoonsiinayaa ciyaaryahanka kaalinta labaad ee markaasi tartanka kaalinta labaad ka galay waana Xasan Barre Ugaas ayaa la gudoonsiin doona waxaana gudoonsiin doona Cabdullaahi Maxamed Xurshe ayaa gudoonsiin doono gudoomiyaha judooga ayaa markaasi gudoonsiin doona waayay Xasan Barre Ugaas ayaa la siiyay biladiisii kaalinta labaad ee tartanka baaskiilada magaalada Muqdisho waxaana soo kale la siinayaa abaalmarintii uu ku guuleystay ahaa koobkii uu qaaday Xasan Barre Ugaas ayaa la gudoonsiyay biladii iyo sidoo kale koobkii uu ku guuleystay ee kaalinta labaad tartanka baaskiilada ee Somali Cycling Cross Championship ciyaaryahanka ugu dambeeyo waa guuleystaha tartanka Muscab Maxamed Abdi ayaa ah kaalinta koowaad ee tartanka Somali Cycling Cross Championship waxaana gudoonsiin doona gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee baaskiilada Masar Cabdullaahi Canjeer ayaa gudoonsiin doono koobkii kaalinta koowaad ayaana la siinayaa